aan ku bilaabnay waxaa sabtidii kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ku guuleysatay koobka Champions League kulankii finalka ee ay la ciyaareen Man City halka gool oo ay Chelsea guusha ku raacdayna waxaa daqiiqadii 42 ee ciyaarta u dhaliyay Kai Havertz haddaba sidee ugu suura gashay Chelsea inay ku guuleysato koobkaasi Man City se maxaa ka qaldamay su'aashaas iyo kuwa kale waxaan weydiiyay oo aan doodan u qabtay barkhad leh Cusmaan Cumar oo ku magac dheer Shabalala oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Nairobi iyo Cabdirasaaq Binde oo ah wariye ciyaaraha ka faalooda oo isna Hargeysa ku sugan waxaana ku hormaraya barkhad leh waxaan isli karaa Chelsea waqti fiican ay ku soo aaday ma la fileen Champions League waxyaabaha uu leeyahay waxa kamid ah kooxaha aan la fileen ayaa soo xaluusha oo koobka qaada si ilaa finaalka laga imaado waxaa jira tactically in lagu qaado oo aysan lagu qaadin ana fiican marka waxaan isli karaa Chelsea qaab tactically aad u fadhiyo fiican ay la imaatay wali finaalka marka la fiiriyo qaab isku la socdeen ama shaxdoodu u fadhisay aad ay u sareysay marka aniga ahaan Chelsea way u qalatay koobka inay qaado Cabdirasaaq Thomas Tuchel maxay tahay waxa la isdhihi karo waa uu sameeyay oo u horseeday guushan Thomas afar bilood kaliya ayuu kooxda Chelsea maamulayay waxay tageen finalka FA-ga inkastoo Chelsea laga adkaaday afarta sare ay ku dhameysteen Premier League markaan eegno koobka championka hadda way qaadeen sidee ugu suura gashay baad leedahay waxyaabaha runtii la oran karo way u sahleen inuu koobkan ku qaado waxa koobka ah inuu ciyaartooyadii uu horta isku soo dhaweeyo oo baro ujeedada loo socdo iyo qaayaha ay kooxdu leedahay onoga Super Frank Lampard kooxdu runtii intan uu waday waxa ku yimaanay guuldarooyin xanuun badan niyad jab xagga ciyaartooyada isaga xiriirku aan isku wanaagsanin kooxda Chelsea waxa jooga ciyaartooy reer Jarmal oo runtii lacag badan lagu bixiyay sida ciyaartooyga Havertz Tim Werner oo Rudiger oo runtii aan fursad wanaagsan ka helin Super Frank Lampard intuu yimi runtii waxa uu siiyay chance marka waxaan oran karaa laba shay ayaan u sahlay Thomas Tuchel isagoo ciyaartooyadii isagoo xiriirkiisu wanaagsanadeen iyo ciyaartooy wanaagsan oo fursad u siiyay qaab ciyaareed cusub oo ku soo kordhiyay kooxda Chelsea waayahay guusha Chelsea marka laga yimaado kooxda ay guuldarada soo gaartay niyad jabka la hooyatay Man City oo markii ugu horeysay ba gaartay finalka Champions League maxaa ka qaldamay bay kula tahay City Shabalala runtii City waxyaabaha ugu badan ee finaalka ka khaldamay sanadkan waxay ahayd horta inta finaalka la soo gaarin sanadii hore finaal ma soo gaali jirin waxay iska soo dhistay oo koobka u fahmeen in kubadoodii qurxaneed ee gowraceen oo qaabkooda difaacooda aad ay u soo fiicneeyeen difaacyo qaali soo gateen marka macalinka oo qaybtaas difaac xoog saarayay ayaa finaalka yimaaday waxaana lagu eedeynaa macalinka Pep Guardiola overthinking sameeyay wax la yiraahdo ama extra smart waxyaabaha la yiraahdo fikirka zaidka ah ama isku dayga intii lagu yaqaano kuwa kale ku daray intii lagu yaqaanay wax kale ku daray waana taqaana raashinka cusbada hadii laga badiyo ma dhadhamaayo ciyaartooy Gundogan oo aan 2018 ugu dambeysay inuu booska lambar 6 ka dheelo ayuu lambar 6 keenay goolaliyo isku bedelay waa top scorer teamka marka laba wax baa meesha ka baxay counter attack-gina inaysan iska difaaci karin oo difaacyada lagu xisaabtamayo sida Stones iyo Diaz khalkhal ka muuqday taasoo muujinaysa in Rodri ciyaartooyga la dhaho seasonka intiisa badan uu siiyay kalsooni difaaca Cabdirasaaq markan siinaya Cabdirasaaq City maxaa ka qaldamay bay kula tahay weli lama arag koox uu kubad buriyo uu ka maqan yahay iyo runtii kubadda uu dhaliyo waxa uu aaminay inuu Raheem Sterling ka dhiga 9 isagoo garabka loogu bartay inuu ka ciyaaro marka waxa la oran karaa Pep Guardiola isagoo laba boos oo muhiim ah oo kooxda Chelsea runtii gool ka taban arkin inuu dhaqdhaqaaq badan sameeyay 9 koox ciyaartooyda kooxda Chelsea inay runtii kubadaha aad iskaga soo caabinayeen marka runtii waxaan oran karaa Pep Guardiola labada khalad ee kubad burburiyaha iyo ninkii 9 ee kubadda dhameystiriyay labadii weeryahan lambarka 9 lagu ciyaaray uu keedka dhigay taas ayaa من حقوق كله كل دريس واتهاي ugu dambeyn bal dhanka Premier League kooxo badan ayaa isu soo dhisi doona oo aad isu soo adkeyn doona marka ma idin muuqataa in xil ciyaareedka xiga uu Thomas Tuchel iyo Chelsea ay caqabad weyn ku noqon doonaan Pep iyo Man City shaba runtii aniga ahaan markaan Thomas Tuchel hada markaan tacticadiisa fiiriyo inta aniga kubadda ka aqaano horyaalka qaabka loo dheeliyo qaabka koobabkan bugbaxda loo dheeliyo isma laha horyaalka wuxuu ka rabaa waxoogaa ergeysinimo maalin walba inaa weerar qaadi kartido 3 dhibcood qaadan kartid waa laga yaabaa inuu iska soo dhiso qaybka weerarka ah laakiin ilaa hadda waxaan ka helay qaybtiisa galaalay dhexda iyo qaabka kubadda u raacanayo laakiin wajigaas hore rag goosha looga baqo maalin kasta 3 dhibcood qaadan kara wali iimuusan tusin laakiin waxaan hubaa inuu Champions League sanadaha soo socdo dhan imaanayo
qaadayo maxaa yeelay Champions League tactical lagu qaadaa farsamo is haysataa lagu qaadaa aqli zaid lagu qaadaa uu qaadi karaa laakiin horyaalka waa 38 isbuuc wuxuu rabaa firfircooni maalin walba adoo 3 dhibic ku dagaalama marka wali taas ka markin aniga ahaan levelka Liverpool iyo Man City ma gaarsiin karin wali waa tahay Cabdirasaaq ma la qabtaa fikirkaas Shabalala may aan fikirka lama qabo sababtoo ah Thomas Tuchel runtii markuu yimi horyaalka dalka Ingiriiska kooxo badan oo awood buuxda ku leh horyaalka dalka Ingiriiska ayuu runtii dhirbaxa xanuun badan ku dhuftay wula muhiim ayuu ka gaaray runtii Thomas Tuchel isagoo imikana Champions League qaaday mulkiilaha kooxda Chelsea uu maalgelin fara badan ku sameyn doono waxaan hubaa inuu qaab ciyaareedka kooxda Chelsea kula tartami karo uu hirdin xoogan la geli karo kooxda lacagta badan lagu bixiyay ee Man City Pep Guardiola hogaaminayo 38 kulan oo Premiership-ka wuxuu gaarsiin karaa kooxda Chelsea kaalimaha ugu sareeya xilli ciyaareedka soo socda horyaalka dalka Ingiriiska kuwaasi waxay ahaayeen Barkhadle Cusmaan Cumar oo ku magac dheer Shabalala oo ka faalooda ciyaaraha oo Nairobi ku sugan iyo Cabdirasaaq Binde oo ah wariye ciyaaraha ka faalooda oo Hargeysa ku sugan